iyadoo maalinnimadii shalay ay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gilgileen mudaharaado ballaaran isla markaasna watay rabshado kadib markii taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool iyo ciidan wata ay toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidanka booliiska ee gobolka Sool haybahaana ka soo jeeda beelaha dega gobolka Sool falkaasi kadib ayaa shacabka carooday toogashadaasi bareerka ay weerareen saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood dagaal halkaasi ka socday muddo saacada oo sababay dhimashada hal askari oo kale iyo dhaawaca 6 askari oo iyana ka tirsan isla ciidanka booliiska gobolka Sool ayaa shacabka u suurta gashay inay la wareegaan guud ahaanba gacan ku haynta saldhiggaas iyagoona gubay hal gaari oo nooca loo yaqaan xaajiyada una watay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool halka saldhiggan ay ka sii daayeen gabi ahaanba wixii maxaabiis halkaasi ku xareysnaa wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee gobolka Sool ayaa iyana kamid ahayd meelaha ay sida weyn shacabku u boobeen isla markaasna ay u soo gaarsiiyeen dhibaatada weyn iyadoona isuduwaha wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Farxiye Maxamuud Aadan ay noo xaqiijisay dhibaatada la soo gaarsiiyay xafiiska wasaaradda hawlaha guud jawiga magaalada Laascaanood ayaa maanta degan waxaana noo suurta gashay inaan maamulka gobolka wax ka weydiino xaaladda guud ee gobolka Sool waa kuwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Somaliland gudoomiyaha gobolka Sool iyo hoggaanka dhismaha ciidanka booliiska oo ka warbixinaya arrimahaasi laakiin maxaa qaladaad aynu ka hadalnaa innaka hadeerto 360 digrii wareegnay oo wixiiniba baabiinay marka aqli waa shaqeeyo marka la cadhaysan hadaan ka warramo xaaladda gobolka Sool aad bay u degan tahay xaaladdu aad bay u wanaagsan tahay aad bay nabadgelyada maxaa la yiraahdaa ay u sugan tahay wixii shalay dhacay wax ka dambeeyana ma dhicin arrintii dhimashada laba askari oo booliiska bay ahaayeen wixii dhimashaha daawada shan wixii magaalada ka dhacay maalintii shalay saldhiggii dhexe magaalada dad cadhaysanay wax yar yeeleen run ahaantii maanta saaka gudidii sare ee booliisku taliyaha ciidanka booliisku noo soo dirayna waa noo yimaadeen qoladii kiiska iyo wixii dhacay u socotay oo baari lahaydna way nala joogaan haddana magaaladu waana nabadgelyo waadna arkaysaa waana amni wax dhibaatayna kama jiraan laba askari wey waxba qarin mayno xaqana ku sheegaynaa laba askari wey isku soo wada duub oo shacabka magaalada Laascaanood ayaa dhammaan dhibaatadii shalay ka dhacday halkaasi ku eedeeyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool iyagoona sheegay in madaxda booliiska ee ka soo jeeda beesha dhexe ee Somaliland ay mar walba kicin iyo fowdo ku abuuraan shacabka isla markaasna ugu baaqay taliyaha guud ee ciidanka Somaliland in booliiska gobolka Sool loo magacaabo qof u dhashay gobolka Sool si loo xakameeyo dhibaatooyinka soo noqnoqonayay muddadii ugu dambeysay سمير سعيد بلا تلفزيون مدح بنان بولشو مقالة Laascaanood